kulan wacan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey kiis dil ah oo ka dhacay magaalada Hargeysa iyo faahfaahino markaasi ka soo baxaya iyo xogihii ugu dambeeyey ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa balse tan guda galin marka koowaad soo dhawow muuqaalkan like saar siina share gareey si dad badan uu gaaro faahfaahin dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxaysaa faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya kiis dil ah oo maanta ka dhacay degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Dilkan ayaa loo geystay oday da' oo lagu magacaabi jiray Cabdi Haybe Khayre Cabdi Dheere. Dilkan ayaa la sheegay in loo adeegsaday bastoolad iyadoo ninkii dilka uu fuliyay uu ka baxsaday goobta. Kiisaska noocan ayaa waxaa markii hore ay aad ugu badnaayeen dhinaca koonfurta balse hadda waxaa muuqato in Somaliland ay wajahayso dilal markaasi aad u tiro badan oo loo adeegsanayo bastoolada iyo sida agabyada kale ee markaasi wax lagu dilo. waxaana badi bulshada ay isweydiinayaan waxyaabaha keenaya dilalkan qorsheysan. Warar kala duwan oo ka soo baxaya dilkan ayaa sheegaya in uu salka ku hayo muran dhul inkastoo weli ay socoto baarista kiiskan oo haatan ay gacanta ku hayaan laamaha amniga ee Somaliland. Sidoo kale bilayska Somaliland oo goor dhaweyd ka hadlay dilkan ayaa shaaciyay magaca eedeysanaha kaasoo ay ku sheegeen Aabi Muuse Cilmi. qoraal ka soo baxay bilayska Somaliland ayaa u qornaa sida tan: ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay wadaan howlgal baadhiseed ay ku raadinayeen eedeysana Aabi Muuse Cilmi oo ku eedeysan dilka Cabdi Haybe Khayre Cabdi Dheere kaasoo uu ku dilay abaara 10kii subaxnimo ee maanta degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska booliiska Somaliland. sidoo kale waxaa lagu yiri qoraalka eedeysanaha falka geystay waa la aqoonsaday waxaana socdo dadaalo xoogan oo ay ciidanka booliiska ku doonayaan in lagu soo qabto eedeysanaha. bilayska Somaliland ayaa bulshada ka codsaday in ay ka qayb qaataan gacan ku soo dhigista eedeysanaha baxsadka si loo marsiiyo cadaaladda. cid kasta oo xog ama warbixin ka haysa eedeysanaha hala soo xiriiro saldhigyada ee booliiska ee ugu dhow ayaa ugu dambeyntii lagu yiri qoraalka ka soo baxay bilayska Somaliland. bilihii u dambeeyay waxaa caasimadda Hargeysa ku soo badanayay kiisas dilal iyadoo dilalkan loo adeegsaday bastoolado, tooreeyo iyo agab kale. waxaa ugu cuslaa dil dhacay 20kii bishii Agost goor habeenimo bartamaha magaalada Hargeysa kaasoo nin hubeysan uu ku toogtay 2 ruux. waxaa xusid mudan in booliiska Somaliland ay dadaal badan geliyeen soo qabashada gacan ku dhiiglayaasha kuwaas oo badankood la qabtay marka laga reebo gacan ku dhiiglaha bartamaha suuqa ku toogtay 2 wiil. dilkaas oo ahaa mid qorsheysan ilaa hadda booliiska Somaliland waa ku guul dareysteen soo qabashada gacan ku dhiiglaha geystay oo isagu markii uu falka geystay isla markiiba ka baxsaday goobta. Hargeysa oo ka mid ahayd magaalooyinka Soomaaliyeed ee ugu nabdoon ayaa haatan wajahaysa dilal qorsheysan tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha cusub ee haatan talada haya Cabdiraxmaan Cirro. inkastoo uu si adag markaasi uga hadlay dilalka ku soo badanaya gudaha Somaliland isla markaana uu sheegay in gacan bira ay ku qaban doonaan cid kasta oo ku lug lahaato dilalka ku soo badanaya gudaha magaalada Hargeysa. haatan waxaa soconaya baaritaan xoogan oo lagu raadinayo gacan ku dhiglaha dilka u geystay odayga waayeelka ah waxaana soconaya baaritaan xoogan. sidoo kalena waxaa jira howlgallo markaasi lagu daba joogo rag horey dilal uga geystay gudaha magaalada Hargeysa. haddaad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan like saar siina share garee si dad badan u gaaro.